gudaheeda waxaan u sharxi doonaa ardayda Soomaaliyeed imtixaankii shahaadiga ahaa ee la soo galay sanadkii la soo dhaafay 2022 si ay tusaale ugu noqoto kuwa hadda sanadkan 2023 geli doona marka waxaan bilaabaynaa iyo tobanaad waxay leedahay dariiqada ay maraan saynisyahanada marka ay sameynayaan baaritaan cilmiyeed waxaa loo yaqaanaa we continue aan sii wadno oo aan ka badbadino cunitaankeena ama cuntad badan aan cunno maxaa noqonaysaa tamarkuleedka ugu weyn dunida ama adduunyada waa isku mid waxa ay ka timaadaa afar option la sidoo kale korontada tamartu way ka imaadaa. waxaan qaadanaynaa imtixaanka qaranka oo fasalka 8aad maadada cilmiga bulshada. marka waxaan rajeynayaa ardayda Soomaaliyeed inay si fiican uga faa'iideystaan oo waqtigooda ay ku baxshaan maadaama gabagaba sanadka uu taagan yahay 2 usbuuc wax lamid ay ka harsan yihiin marka la gelayo imtixaanka inay xagga juhdiga soo badiyaan maadooyinka inay akhriyaan meelaha laga helayo sida qaamuuska kale ay aad u raadshaan. بسم الله الحمد لله رب العالمين كي هذا سو شرحينا waa arday dugsiga form 4 ku ahaa qaybta kale oo shahaadiga dugsiga dhexe 8aadka ayaa hadda wax yar ka taabanaya maadaama xoogaa iyagu ardaydu ay arday ugu fiirsanayn waxa dhici karta buugaas ayaga ma khuseeyo form 4 ku khuseeya ayaga waxa way buugooda la sii doono imtixaanka la sii doono ay u dul shaqeyn doonaan imtixaanka intaysan ka dul shaqeyn ardaydu inay awaamirta qaataan